السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكسلامي دكتور شافعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومahadsantahay inaa iga gudunta salaanta. Waxaan maanta meesha u nimaada waxay tahay walwalka aan ka qabo aniga iyo nafteyda iyo caruurteyda iyo communitygayga. Walwalka aan ka qabno cirbadan COVID-19 talaalka oo magsiinka la qaadanayo talaalka ah walwalka aan ka qabo dhibaatadii keeni karto. Sababtaas oo ah iyadoo cirbadii degdeg lagu sameeyay. Waxaan is dhihi karaa waan ka walwal qabnaa inaan qaadano. Maxay dhibaato ay keeni kartaa ayaan is leenahay. Waxaan rabnaa marka inalka dhaadhacsiyo cirbadaas COVID-19 loo qaadanayo talaalkiisa dhibaatada keeni karto. aad ayay muhiim u tahay in la ogaado qaybaha ka mid ah soo saarinta talaalada COVID-19. qaybta sida dhaqsi badan loo sameeyay waxay ahayd ogolaashada sharciyeed, maalingelinta iyo gudbinta Food and Drug Administration FDA. kuwaan dhammaantooda waa waxyaalaha ku saabsan howl xafiiseedka. laakiin si degdeg ah looma sameynin cilmi baarista talaalada. tijaabooyinkoodana si wanaagsan ayaa loo fuliyay. dadejinta maalingelinta iyo tallaabooyinka sharciyeenta ayaa u saamaxay in si dhaqsi ah loo soo saaro talaalka ka hortaga COVID-19. laakiin tayada nabadgelyadiisa waxba looma dhimin. ammaanka talaalka COVID-19 waxaa fiiro gaar ah ku hayo xurumaha xakameynta iyo ka hortaga cudurrada oo loo soo gaabiyo CDC iyo FDA-da. Waa mahadsantahay. adaa mudan. marka aad iyo aad ay muhiim u tahay inaan istalaalno. dadkan waxaa ku dhiirigelin lahaa inaad istalaashid kaa qaadatid aday ku qusaysaa dalka hadda saddex loo ogol yahay. saddexdaas haddii aad wax su'aalo aad ka qabtid dhakhtarkaaga kala tasho ha kala tashani wixii aad ka maqashid social media iyo wixii aad banaanka ka maqashid. haddii aad wax su'aalo aad qabtiin aad arabtiin aad nala xiriirtiin aad nala soo xiriira. aniga waxaan u shaqeeyaa kuwa caafimaadkan u shaqeeyaa. marka insha Allah waan la iska saaya khayr caafimaad ayaan rajeynayaa. waxaan idinku dhiirigelinayaa qof walba inuu istalaalo walaalayaal.